السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواada daawadayaal warbaahinta Chess Media iyo Ismaaciil Xirsi cigaal qodobadeena caawa aynu soo qaadan doona barnaamijkeena waxa kamid ah Saciid Cabdillaahi Deni oo ku soo waajahan waqtiyada inuu soo socdo magaalada Baran halkaas oo ciidamo hordhacay soo gaareen galabta waayahay fiimo quujo oo habaar iyo yuhashu ula fadhiisatay Saciid Cabdillaahi Deni iyo waraysiga laga qaaday taabo isla arki doonaa balse laakiin waxaan ka codsanayaa in aad aragtidaada commentiga igula wadaagto oo aad ka qayb qaadato barnaamijka iyo falanqaynta siyaasadda jaah wareersan aynu ku horeynay bal fiilmo quujo ila daawo Saciid Cabdillaahi Deni marna inuu dadka deegaankayga dan u haynin oo uu ahaa khatar badan musabix weynuga way Somaliland cadow la garan bal haddaba waxa weeye arrimahan ay ka hadlaysay ee Saciid Cabdillaahi Deni iyo habaarka loola fadhiistay aan ku tusi doono waxay tiri ilaahayow Soomaali madaxweynaha nooga dhig waxay kaloo tiri cadow Soomaali leedahay cadow ay Puntland leedahay cadow ay jabhada SSC Khartoum leedahay oo Saciid Cabdillaahi Deni dhinac ka xiga ma jiro bal hadda waan idinku soo celinay marka khatarta Soomaaliya waa Saciid Cabdillaahi Deni waxa Ilaahay ugu mahadiyaa inuu Ilaahay ka qabto ummadda Soomaaliyeed doorashada sharxana Saciid oo kale Ilaahay ka qabtay aan xukun ugu dhiibin Ilaahay baan ugu mahadinaynaa halganka xawaariista marka laga yimaado qofka la isugu tagi doonay tahay isugu tagayso dagaalkiisu xalaash yahay horta waxa weeye sidaan muuqaalo hore ku soo galay waxa jirta in ay uu rajo weyn ka qabo ganacsada Maxamed Jabuutaawi inuu jabhada SSC hogaamiyo halkaas oo ay waxyaabo badan oo kalena isku qasan yihiin haday xagga garaadada tahay haday xagga fariisinta maamulka jabhada SSC ay tahayba afarta jaho waxyaabo badan isaga hor yimaadeen waxa kale oo jirta meelo badan oo laga dhingidiyay maanta jabhadii SSC Khartoum bal hadaba waxa weeye Saciid Cabdillaahi Deni maxay ka rabtaa fihiima waxa ay ka doonaysaa waa maxay horta waxay ka hadlaysaa iyo waxay u hadlaysaa iyadu waa afkii xartinimo iyo daaroodiisanka waxa weeye arintaasina maaha waa arin daboolan maanta arrin siyaasiya baa la marayaa siyaasad doorashooyin baa madaxayna ugu soo haya arrin siyaasadeed baa la marayaa fiimo quujan waxaan u aqaanay dadkii aanu tababarnay ee xildhibaannimada ku tababarnay ee siyaasadda wax ka yar fahansanayd wax daaroodiisan la yiraaho maanta way dhaaftay siyaasad baa la ciyaarayaa cirkiyo dhulku intay isu jirtaa bal haddaba waxa weeye Saciid Cabdillaahi Deni muxuu awood u leeyahay muxuu daaroodka kale dheer yahay muxuu awood u leeyahay way jirtaa hartinimada iyo daaroodnimada iyo 4.5 waxa sugi jira balse laakiin 4 kan laftigiisa waxa way soo ogolaynba oo waxa kullu qof walba qofku webi kaga gudbaya Saciid Cabdillaahi Deni wuxuu awood u leeyahay inuu Soomaali maamulo waa hadii iminka shuruudaha laga rabo uu saxeexa dhamaantood ee Somaliland ka rabto wuxuu awood u leeyahay in ay maamulo Soomaali oo dhan macal Xasan Kaayim ka haysta ku jiro jabhada SSC Khartoum horta si kastaba ha ahaatee iyadu ma hoos tagto dee Soomaaliya dadka u socdaalaya tigaya ka soo noqonaya mooyee jabhada SSC Khartoum in ay Somaliland tahay dhulkeedani Saciid Cabdillaahi Deni waa ogolyahay hadduu wimbarka madaxtooyada furana waxa weeye dee waa wixii maanta la isla saxeexday ka mid wuxuu soo gaari doonaa baran hore u soo dhaafi doonaa labada madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahina xaggan uu ka iman doonaa waxa ayna wali cadaymo ku filan u hayn ma laba wafti baa la isu dirayaa qof waliba qofka kale cidii matashay uu soo diray ma iyaga laftigooda kulmaya halka arrin baa ka dhacaya ceer gaabo leeyaho iyo nawaaxigeeda waxa kale oo jirta imaaraadka oo ka dhagax dhigaya mashruucyo fara badan oo ay ka mid tahay wadooyinka waaweyn oo kala bixi doona xeeb ilaa sanaag dahabkii oo qorshayaal fara badan dahabkii hada waa dahabkii warsangiri ma aha dahabkii kale ee maxaa sheegay ka sukay dahabkii warsangiri oo qorshayaal fara badan loo dejinayo iyo sidii loo barwaaqayn lahaa shirkadihii ka shaqayn lahaa oo imaaraadku iska leeyahay mashruuci noocaas ayaa laga dhagax dhigi doona ilaa warshadaha kalluunka inay ku jiraan bar filaya oo maalgashiyo loo ogolaado haddaba maalgashigaas waxa uu ka imanay maalgashigaas horta Somaliland buu ka imanay wasiirka kalluumaysiga maanta waa nin warsangiriya warshada Soomaaliba anfaci jirtay imaanta doonaysa in saa loo istaaraano laas qoray bay ku taala waa rag dhulkooda ilaashaday bay ahaa waxa weeye arrimahaas iyo arrimo kaleba waxa la doonayaa in laga wada shiro oo la maal gashado
imaaraad baana dabada ka riixaya runta dee markay isu sheegno fiima quuja carabkeeda waxay ku dhufatay halka imaaraadka way idinku celin doonaaba haddii aydaan hore u maqlayn bal haddaba imaaraadkan muxuu rabaa imaaraadku wuxuu rabaa badda cas maanta dekeda boosaaso isagaa maalgashaday shirkaddii DP World tabarbarana wuu maalgashado maalgashigiisii ayay ku shaqaysaa waxa weeye bad iyo bariba wuu maalgashanaya isagu geeska Afrika waa ganacsato nimankan la yahay imaaraadku gabadhooda ganacsi bay ka sameeyeen dhiigooda hadii la sheebaaro waa ganacsi waxay doonayaan inay maalgashadaan macdanta iyo beeraha iyo warshadaha iyo badda iyo bariga iyo cirka iyo dhulka haddaba inaga maxay nooga faa'iidaan inagu waxaynu leenahay maalgashiyadan wax soo saarkooda waynu leenahay sida Soomaaliya oo kale 5% ku yeelan mayno waxaynu yeelanaynaa 6% waxa kale oo jirta waxa lagu shaqeynayay iyo waxa shaqeynayay inaga iskala nin waliba kiradiisa markuu dhamaysto uu iska tigay dhagaxa maanta aynu riyaha ku shiidno lacag buu noqonayaa waxa jirtay horeba Soomaaliland inay heerar ka gaadhay oo waxaan ku xitaa xayawaanka dhulka maraya lacag noqday oo dhagaxi lacag noqday oo waxaan ku buurihii silsilada gulis la isku qabsadayba rasaasta la isku afuufay way jirtay waqtiyadii aynu barwaaqaysnayn baa ahayd cid waliba waa ogolay Soomaaliland markaas oo markaanu booc ama lagu soo dhaweyn jiray ciidanka lagu soo dhaweyn jiray saaxdheer booc ama halka aanu marinayba waxa weeye dunida horumarka isku raacda horumar baa maanta la rabaa siyaasad dhaqaale ayaa la rabaa waxa weeye marka Soomaaliya waxa ku tartama dawladda shisheeye waxaana gacanta ku haya dawladda shisheeye waxa weeye jeebkii afkuun baa la isu buuxiyay bis wax dana bulsho oo laga taliyana ma jirto bal dhinacna waxba laga siyaasadeynaya waxba lagu kharash gareeyay dhinacna way ka urulaysaa way ka gubanaysaa waxa weeye meedadka la jiijiday xalay iyadoo madaxu loo maqan yahay hablaha yaryar ee naxdin daayay waxa jirta dadku bini'aadanimo halka ka gaadhay meedin taasiba maqan tahay bay iyo durbaan ka dul garaacaya oo Soomaaliya waliba hata ma aha gaar ma aha qof ajnabi qofku isagoo gaar oo de Soomaaliya xitaa waxa weeye ninku markuu dhinto dunidan wax dambe uu ka bedeli karaa ma jirto waxaan weeye ixtiraam gaar u meedku leeyahay waa bahalnimo halkii ka gaareen dadka la doonayo in ay dhulkan yimaadaan anigu horta sidii wasaaradda maxaa sheegayay duulistii hawada iyo laamaha socdaalku ay soo saareen qof dabbe oo aan Soomaaliland u dhalan oo dhalashada aan sidin oo intuu iska joogo iska shaqaysto iska dhaxmar ma jirayso nimankan kala sanka waaweyn cilaashada haraan ka wada furtay oo loo jaraya wala waan arkay Hargeysa qaar falal argagixisnimo ka sameeyay oo maxaa sheegayay la haystay oo meesha inta xidhan yaacay waxa weeye qof kasto ajnabi oo maanta soo gaaray Soomaaliland waynu ahaada qof sharci ku jooga sharcina kaga baxa yaa igu diidantaa barnaamijka subscribe hadii aan hore ila joogin share garay commentigana aragtidaada igula wadaag sidoo kale waxaan idinku celinayaa xildhibaan Fahiimo Quuce inta si daawan kartaan waad si daawanaysaan waan idin salaamayaa habeen wanaagsan dhamaantiin baa khayartay